nina labaduba waa la bal sawirada aaga imka markaad magaalada maraysaa boorarka nina labaduba waa sidaa macnaheedu waxa weeye difaaci qaranka gacantan ka laabtay oo wax qabadkii ummadda gacantan ka laabtay oo isku wadkii ummadda gacantan ka laabtay oo waxaan qabto garan maayo wax ii sheega weeye markuu sidaa leeyahay hadal bay yidhaahdaan xadkii wuxuu ku soo ururay oog waar xadka Soomaaliland cidina ma beddesho waa halkiisii dalladaha kala duwan ee halkan caawa ku soo noqday ee ku soo biiray xisbigoodii kulmiye ee ay garanayeen kadib markii ay tageen meel aanay garanaynin oo aanay fahmaynin aad iyo aad baan idiin soo dhowaynaynaa waxaa ii raaca xisbiga kulmiye waa xisbi aan ahayn ururis iyo dad laysu keenkeenay iyo dad meelo kala duwan ka soo cadhooday oo meel isugu yimi waa xisbi ilaa maalintii la bilaabay ilaa iyo maanta dadkiisu ay yihiin dadkii kulmiye xisbiga waddani wuxuu ka kooban yahay kow rag ka cadhooday xisbigii ucid oo uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbigu rag ka cadhooday xisbiga kulmiye kadib markii xilalkii qaranka ay u hayeen ay gudan waayeen oo laga qaaday rag ka cadhooday markii la yidhi guddoomiyaha xisbigaanu doonaa yidhaahdeen ee ku tartama la yidhi ku tartami mayna hana la siiyo intaasay horta isugu jiraan waa xisbi ujeeddooyin badan oo kala duwan oo kala nooca leh waa xisbi dadka ku jira aanay isku itijaah iyo isku ujeeddo ugu jirin ee inimo dan gaara ay ka leedahay waxaan ku darayaa labada nin aynu kala dooranayno waxaa inoo kala dooray boorarka magaalada ku yaalla ma aragtee boorarka magaalada ku yaalla ee lagu xayaysiinayo horta ma aragtay siday kale yihiin nin sawirkiisu gacantuu taagayaa waa sidaa ninna sawirkiisu waa sidaa waa laabayin labada gacmoodba bal hadda dhegaysta waan idiin macnaynayaa dhegaysta waan idiin macnaynayaae labada sawir baa idin kala macnaynayaa nin gacmihiisu way taagan yihiin waxay sheegayaan awood waxay sheegayaan quwad waxay sheegayaan difaac waxay sheegayaan soo jeed waxay sheegayaan wax iska celin nina labaduba waa la bal sawirada aaga imka markaad magaalada maraysaa boorarka nina labaduba waa sidaa macnaheedu waxa weeye difaaci qaranka gacantan ka laabtay oo wax qabadkii ummadda gacantan ka laabtay oo isku wadkii ummadda gacantan ka laabtay oo waxaan qabto garan maayo wax ii sheega weeye markuu sidaa leeyahay intaasay nagu filan nin labada gacmoodba u laaban yihiin iyo nin soo jeedo gacmihiisu taagan yihiin ma isdhaafsan karaynaa yaa haynooga jawaabo labada gacmood wuxuu u laabtay sidaa uu yidhay dadka isugu soo sawiray bal intaa haynooga jawaabo ciro reer waddanina haynooga jawaabaan waxaad arki doontaa berrito iyadoo boorarkaa beddelo mid muuse ay ku daynaya ku soo sawiray ayaad arki doontaa hadalkayga markay maqlaan berri boorarka way beddeli doonaan mid sidaasay la odhan kari maayaane mid sidaasay ku soo sawiri doonaan oo gacantu ma kala baxayso dhallinyaroy waddankan idinku dhowr qof oo waaweyn oo halka joogaa wuxuu ahaan jiray iyo wixii loo soo maray iyo sidii loo noolaan jiray waa garanayaan laakiin idinku ma garanaysaan nolol iyo barwaaqiyo wax jiruun baa idinku kowsateen hooyooyinkii qaar baan garanayn oo yaryaraa laakiin awooyaashiin baa garanaya
waxaanu soo taagnay oo aanu joognay waanu xayahay oo markaanu xusuusanno oo meelna xanuuntaa saddexda galabnimo markay marayso oo aan ri iyo shibir mooyaane wax kale magaalada dhex maraynin qof bani aadan oo nooli aanu dhex maraynin oo dadka la xereeyey saddexda galabnimood muddo qubuuro burco ayaanu anagu soo taagnay imisanaa socotaan iminka idinku labada habeenimaa socotaan oo saddexdaa socotaan rag baa ka cadhooday gumaysigii nooca ahaa maxamed kaahin baa ka mida oo muuse bixi baa ka mida kuwaa la joogay saddexda hooyooyinkiin iyo abeeshii seexinaya waa kuwa waddani isku urursaday waana suuf aloolka ma taqaana waxa la yidhahdo aloolka waa mid waddani ka tegey waa mid cid ka yimi waa mid meel kale ka yimi waa mid soomaaliya ka yimi balaayaa isku urursatay meesha xisbi rasmiya oo isku jeedalena maaha waxaan kaga baxayaa dhallinyaroy somalilan hadal bay yidhaahdaan xadkii wuxuu ku soo ururay oog waar xadka somalilan cidina ma beddesho waa halkiisii dhibaato way dhacdaa somalilan waa 6 gobol 6duba mar bay maqnaayeen dhallinyaroy 6duba mar bay gacan kale ku jireen mar bay gacanta soomaaliya ku jireen waa laga soo furfuray raggaa kulmiya hogaaminaya ka soo furfuray laba degmiya bar baa maanta maqane iyana waa iman doonaa iyo kuwii soo celin jiruun baa soo celin karaya kuwii keeni jireen nabad iyo colaadda labadaba ku keeni jiruun baa keeni karaya ha dhegaysanina baadaalayaasha wax laaliya waxay idin hayaan ma jirto waa ku mahadsantihiin waan idinku ammaanayaa oo baga baan leeyahay inaad soo aragteen waxay yihiinba oo dabada tira anigu idinku geli mayne waddaniyay باي باي السلام عليكم